weligaa ma maqashay inay jiraan dad caabuda calanka Mareykanka weyneeyna diyaaradaha waa xaalada qayb ka mid ah qowmiyadaha dega jasiiradda Tana oo dagaalkii labaad ee adduunka ciidanka Mareykanka ayaa airport ka samaystay jasiiraddan aad ayaanay ula yaabeen dadkii ku noolaa aragtida diyaaradaha iyo sida ay hawada isaga duulayaan iyagoo aan meel ay cuskanayaan jirin ciidankii Mareykanka halkaas ku noolaana markastoo ay duulaan oo ay soo laabtaan cunto ay u soo qaadi jireen dadka jasiiradda ku nool waxaanay aamineen dadkii jasiiradda ku noolaa in dadkoodii dhintay ay u soo dirayaan cuntooyinka iyo dharka askari Mareykan ah oo la odhan jiray John Frum ayaana u xaqiijiyay isagoo karwaadeysanaya balse wuxuu agtooda ka noqday qof muqadas ah oo ay weyneeyaan sanawaad kadib dagaalkii labaad ayaa dhammaaday diyaaradihii iyo cuntooyinkiina way go'een waxayse bilaabeen dadkii meeshaas deganaa inay sameeyaan diyaarado qori ka samaysan iyagoo isku dayay inay kiciyaan oo ay hawada u diraan si ay cuntada uga soo qaadaan dadkoodii dhintay waxaanay aaminsan yihiin ilaa hadda inuu John Frum oo ahaa askarigii Mareykanka ahaa inuu maalin uun soo laaban doono